waxa maanta oo khamiisa aan u shaqaynaynay bulshada ku dhaqan Salaxley iyo hareeraheeda si mutadawacnimo dhakhaatiir reer Hargeysa ah oo dhakhaatiirtii loogu jeclaa dhanka caafimaadka ka mid ah iyagoo markaa adeeg daaweyn iyo baaritaano iyo qalliin bilaash ka fulinayay hospitaalka degmada Salaxley maanta waxaa dhakhtarka cusbitaalka aynu keenay 5 dhakhtar oo isugu jira dhakhaatiirtii xanuunada guud qalliinka guud dhakhaatiirtii maqaarka dhakhaatiirtii caruurta kuwaasoo adeeg bilaasha ka fulin doona cusbitaalka waxaan maanta halkan u nimid inaan ka fulino adeeg caafimaad oo degmada Salaxley oo ay tahay markii u horeysay aan nimaadno maanu nimaadneen haddayna soo dhaweyn aan soo tilmaamin Dr. Kamal Abdirahman iyo Ahmed Abdi Aadan maanta waxaanu safar kooban ku nimi degmada Salaxley annagoo markaa dadka deegaanka degmada Salaxley iyo deegaamada ku teedsanba aanu u fulinaynay adeegyo bilaasha dhaqaatiirtaas waxa u yimaadeen oo halka u soo mareen inay dadkooda wax ku celiyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro waxa ku sugannahay hospitaalka degmada Salaxley hospitaalka dawliga waxa hareerahayga taagan agaasimiye hospitaalka xogayihii dawladda hoose degmada xildhibaan walaha deegaanka degmada ka tirsan suuxiyaashii iyo dhakhaatiir markaasi hawlgal caafimaad halkan ka fulinayay maanta waxa maanta oo khamiisa aan u shaqaynaynay bulshada ku dhaqan Salaxley iyo hareeraheeda si mutadawacnimo dhakhaatiir reer Hargeysa ah oo dhakhaatiirtii loogu jeclaa dhanka caafimaadka ka mid ah oo ugu horeeyo dhakhtarka qalliinka guud Dr. Abdi Khaliq sidoo kale Dr. Abokor Dr. Xasan Deedaad iyo Dr. Guuleed ayaa degmada maanta noogu yimiday iyagoo markaa adeeg daaweyn iyo baaritaano iyo qalliin bilaash ka fulinayay hospitaalka degmada Salaxley waana markii ugu horeysay dhakhaatiir intan leegi ay hospitaalka yimaadaan anigoo ku hadlaya afka maamulka hospitaalka waxaan si milgeeye maamuus laan ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirta oo aan leeyahay waxaad u shaqaynayseen dadkiinii waxaad wax u barateen iyagii ahaayeen jazakallahu khayran ilaahay idamkiisana dadaalkay noqon maayo mid istaaga uu socon doonaa ka maamul ahaan waxa noo dajisan in dhakhaatiirtii maadaama Salaxley ay ka go'an tahay Hargeysa ay dadku u safri jireen iyo Hargeysa u tagi jireen inaanu halkan ugu keenno haddii Ilaahay qadaro sida maantaba dhacday bulsho badan baa runtii ka faa'iideystay adeegan hadday noqoto kuwa xanuunada maqaarka xanuunada caruurta qalliinka oo isla markaan la fulinayay qalliinada qaarkood wixii halkan lagu qaban karo oo dhan sida hemorrhoid oo loo yaqaan bawaasiirta hydrocelka ama galka xiniyaha waxyaabaha biyaha gala fiixaha wixii halkan lagu qali karo prostate-ka qanjirka ragga wixii halkan wax loogu qaban karina dhakhaatiirtu waxay u ballan qaadeen inay ugu shaqayn doonaan goobaha ay ka shaqeeyaan ee Hargeysa ku taala iyagoo markaasi mudnaan gaarana siin doona waxaan doonayaa inaan xuso shakhsi mudan oo runtii hawsha markii aanu ra'yigeygii iyo soo jeedinteediina qayb weyn ku lahaa dhakhaatiirta inay yimaadaan la fududeeyay ayaan doonaynaa u mahadnaqo Soomaalidu waxay tiraahdaa qofkan aadamaha u mahadnaqin ilaahina u mahadnaqo isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Maroodi Jeex Dr. Mahad Abdi Yaasiin ayaan rabaa halkayna uga mahad celiyo oo runtii fikirkan iyo inuu dhaqan galaba nagala shaqeeyay waana dadkeen u baahanahay in haykalka dawladnimada ay noo qabtaan qof garanaya duruufihi ay ku noolaayeen dadku dhakhtara in badan ku shaqeynayay sistamka caafimaadka imikana joogaba xafiis ugu mudan oo xafiiskii gobolka ee wasaaradda caafimaadka guud ahaan Maroodi Jeex oo dhan halla jazakallahu khayr doctor waxaan u joognaa maalin ka mid ah maalmaha cusbitaalka maanta waxaa dhakhtarka cusbitaalka aynu keenay 5 dhakhtar oo isugu jira dhakhaatiirtii xanuunada guud qalliinka guud dhakhaatiirtii maqaarka dhakhaatiirtii caruurta kuwaasoo adeeg bilaasha ka fulin doona cusbitaalka dadweynaha waxa la ogeysiinayaa in dhakhaatiirta dhammaantood eegistooda tigirkooga dhammaantooda bilaash tahay
keliya shaybaadhka iyo dawooyinka qofku uu iska bixin doono wixii qalliina loo baahdana nooc kasta oo qalliinana si bilaash loogu samayn doono ka maamul ahaan cusbitaalka waxaanu markasta dadaal ugu jirnaa in bulshada ku dhaqan Salaxley iyo nawaaxigeedaba in ay helaan adeeg dhameystiran oo caafimaad oo dhan walba ah si markaa ay uga maarmaan dhakhaatiirtii ay ugu tagi jireen meelaha fogfog kharash badan oo kaga bixi jiray iyo dhaqaale badanna iyo waqti badan oo kaga bixi jiray in aan ugu keenno guryahoodii meel u dhow si bilaashana loogu shaqaynayo kaliya qofku markaa wixii dawooyinka iyo shaybaadhka iska bixin doono haddii la yidhaaho adeega oo bishiiba hal mar aanu dhakhaatiirta takhasusaadka kala duwan ay cusbitaalka iman doonaan si ay markaa bulshadooda ay ugu celiyaan aqoonta ay soo barteen bulshaduna ay uga faa'iideysato maanta munaasabad waxay nala joogaa xogayihii dawladda hoose iyo xildhibaanadii dawladda hoose Salaxley iyo dhakhaatiirtiiba marka dhakhaatiirta mar labaad iyo mar saddexaad waanu mahadnaqaynaa waanu soo dhaweynaynaa dhakhaatiirtan iyo dhakhaatiir kale badanna waxaan ugu bishaareynaa bulshada reer Salaxley iyo nawaaxigeedaba in ay cusbitaalka ugu iman doonaan adeegyo dhameystiran ay ka heli doonaan maanta waxaanu safar kooban ku nimi degmada Salaxley annagoo markaa dadka deegaanka degmada Salaxley iyo deegaamada ku teedsanba aanu u fulinaynay adeegyo bilaasha kuwaas ay ka mid yihiin qalliino bilaasha iyo sidoo kale adeegyada kale caruurta xanuunada caruurta iyo xanuunada guudba adeegyadaas oo dhammaantood bilaash aan ugu talagalay inaanu bulshada dib ugu celino si markaa mutadawacnimana aanu waqtigeega markaa bulshada iyo aqoonteeda qayb ka mida markaasi bulshada dib ugu celino markaa runtii waa markii koobaad ee aan nimaadno degmada Salaxley laakiin waxaan rajaynaynaa inaanay noqon markii koobaad ee aan marar badan soo noqon doono insha Allah taala markaa waxaan u mahadnaqaynaa maamulka degmada Salaxley iyo sidoo kale maamulka cusbitaalka degmada Salaxley ugu horeeya agaasimaha Dr. Kamaal iyo markaasi madaxa shaqaalaha Axmed Cabdi markaa aad baad u mahadsantihiin insha Allah horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa maanu nimaadnay run aan sheegay maanu nimaadneen haddayna soo dhaweyn aan soo tilmaamin Dr. Kamaal Cabdiraxmaan iyo Axmed Cabdi Aadan horta aad baad u mahadsantihiin waa sax mujtamacaynu waad arkaysaa cid Hargeysa imanaysa aad bay u adag tahay marka in meelihii goobihii outreach-ka loo baxo oo wadankii wax lagu celiyo waa wax naga go'an insha Allahna sida u ballan qaadeen ma noqon doonto Allah musta'an mar kaliyaata marar badan oo dhan waan iman doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wixii Ilaahay uu na barayna aan ugu qabano dadkayaga aad iyo aad baad u mahadsantihiin xildhibaanka iyo Allah musta'an xogayaha dawladda hoose Salaxley waxaanu imika qaliinada iyo caruurta iyo waxaanu sameyn doonaa insha Allah Allah musta'an adeegyo bilaasha oo kaliya tan shaybaadhkii iyo dawooyinku iska bixin doona dadka marka waad arkaysaa faa'iidada maanta Allah musta'an haday iman lahaayeen Hargeysa oo qof laga qalayo ta ugu yaree laga qalo waxa weeyaan waa fiixdaas oo ku kacaysa approximately $200 oo meesheedii inta isagoo soo traafal gareyn imaanin meeshoodii wax loogu qabto wax ka yarna $30 loogu qabto waa alxamdulillah waxa soo dhan waxa ka shaqeeyay maamulka iyo dawladda hoose iyo xildhibaankaba aad iyo aad baad u mahadsantiin qof walba inuu shaqeeyaa dadkiisa nigu magacaygu yahay Dr. Xasan Cabdi Faarax ahna dhakhtar ku takhasusay cudurrada caruurta waxaan maanta halkan u nimid inaan ka fulino adeeg caafimaad oo degmada Salaxley oo ay tahay markii horeysay aan nimaadno fikirka ah in loo soo shaqeeyo bulshooyinka ka go'an magaalada caasimadda oo aan nimaadno maanta Salaxley waxa ka dambeeyay muxuu ahaa madaxa shaqaalaha cusbitaalka iyo agaasimaha Kamaal oo nala soo xiriiray si ay adeeg wanaagsan ugu qabtaan
bulshadooda iyo meesha dadka ay maamulka uga yihiin annagoo dhakhaatiir kala duwana aad baan iyaga ugu mahadnaqanaa sidoo kale inaan bulshadeedii aqoontii aan soo baranay aanu ku celinno oo aanu si volunteer ugu shaqeyno waa waxyaabihii aanu dalka iyo dadkaba wax ugu baranay aad bay u mahadsan yihiin maamulka degmada oo ugu horeeya xoogayihii xildhibaanku oo iyaguna si milgiyo maamuus leh noogu soo dhaweeyey degmada Salaxley khaas ahaan dhakhtarkii degmada waxay noo jooga 5 ka mid ah dhakhaatiirtii ugu magaranayay ugu aqoonta badnaa dhammaan maanta dhakhaatiirtaas waxa u yimaadeen oo halka u soo mareen inay dadkoodii wax ku celiyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ugu daro sidoo kale dadka degmada waxaan u sheegayaa in dhakhaatiirta ka faa'iideystaan laga yaabo qalniino meelo kala loogu qaadi lahaa ama lacag badan lagaga qaadi lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu u suuro geliyay in gurigoodii ay ugu yimaadaan halkoodii lagu qalo loogu dhameeyo hawsha aad iyo aad bay u mahadsan dhakhaatiirtu sidoo kale كل دكاتير كلا جرتوا مرة هوري وانو يمنا دقمة سدا دكتور عبد الرحمن السعيد ومصطفى شكري عبد الكريم مولود يعني من دكاتيرو مرة هوري لا بالله إذا كسوري أنا ما كانوا حلا يا حيوا وحين تدكين حكسوا عليا إنما كان أدري بس دكاتير ثنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته